ما سنتين آد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحضة مسؤولين تا قراء برلمان فدرالك سوماليا رئيس الوزراء قدوميها قبلك وزير هذا دمان مرت شرفتا تلياش عيدنك آد أيان دي سلام يا مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كبعدي عاوة iyo muhiimada ay leedahay aad isaga sheekeynayna waan garanaynaa. wasiir ama senator Dube waa mahadsan yahay. waa run laba arrimood oo soo keen qaabisha ayay ahayd inaan maalmaha taariikhiga aan xusno oo aan maxaan ku raadin muujino oo aan u istaagno isla markaana duruufaha gaarka ah ee dadkeenu ay ku sugan yihiin maanta inaan ka jawaabno. sidaas daraadeed ayay ahayd in aan dhinno oo aan yarayno kharashka dabaaldega wixii loogu talagalay ama budget ahaan u qoondeysnayna aan haddii dhowr qof oo Soomaali ah ay habeen casho u noqon karayaan aan ugu leexino waana u leexinay. marka dadaalkaasi waa ka mahad celinayaa mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay ee suxil qaantay inay hawsha sidaa ay u dhacdo. waa ku mahadsanyihiin walaalayaal. أسبوع حرية عاوة عن كسو قبين دون هدي قال لي را تاريخ دي سوا وذا قرنينا لحي لباتن كي جون وأسو دبار دقنا ما أنتنا كود لوليو أيانو دبار دقنا لحي لباتن كي جون وهاري أنا إنكسو أنا إذا كان سو قيب قرين لكن أنا مالين آدي أدوينو معنا بدنا تاريخ ذا أي كوكا شيء لحي لباتن كي جون تاريخ الصومالي وحواي مالتي أقول رئيسي وعلى الصوماليات أو حورة عيد صومالي لقيتها maalinta dhabta ee maalinta xurriyadda la dhihi karo waa maalintaas. waa maalintaas maadaama ay maalintii ugu horeysay oo maxaan ku raadaay calankeenu isagoo xor ah keligii oo calan kale aanu dhinac ka taagnayn maxaan ku raadaay oo hawada sare ka babaday maalinta xurriyadda ee jamhuuriyadda waa maalintaas. taariikhdaasna way leedahay. taariikhdaasi wixii gadaal daba ka qaldamay ama ka xumaaday ama hadda weli hagaajin uga baahan waan ku soo dadaalnay haddana waan ku sii dadaali doonaa haddii aan halkaa ku hakado gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo taariikhdaasi ayaga u hor lahaa calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah ee xorta ah markii ugu horeysay ciid Soomaali laga taagay ahaayeen duruufaha iyo xaaladaha maanta jira ay aadan u fahamsanahay. waxaa keenay ma aha inay dadka Soomaaliyeed isnaceen ma aha dadka Soomaaliyeed inay kala tageen ma aha in maxaan ku raadaayay gobonnimadeennii iyo maxaan ku raadaayay qiimihi aan lahayn ay waxaysmeen laakiin dhibaato ay keentay siyaasad qalloocatay ayaa maanta duruufaha jira abuuray. waxaan marar badan hore uga dhawaajinay welina aan ku celcelinaynaa siyaasaddaasi qalloocatay inaan toosinaan rabnaa haddii alla yidhaah. shalay rabitaan iyo hilow iyo israbid dadka Soomaaliyeed ay israbeen oo si gaar ah mahadi uga gaartay walaalaha waqooyi ayagu waliba ay muxuu ay u taagnaayeen ayaa midnimada macaawa aan u wada dabaal degeeno oo ah maalintii koonfurtu calanka laga taagay iyo maalintii midnimada. sidaas daraadeed maadaama 26 Juun aan dhahno waa maalintii xorriyadda calankii ugu horeeyay xor la taagay 1 Juulaayna waxaan leenahay waa maalintii midnimada oo ay labadaas qaybood ee Soomaalidii la qaybiyay ay isu yimaadeen oo ay midoobeen ee jamhuuriyadda ay sameeyeen. sidaas daraadeed 1 Juulaayna waxay gooni ugu astaysan tahay maalintii midnimada. waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo dhibaatadii dhacday dalkan muddadii xorriyadda la qaatay wixii ka dambeeyay waa farbadnayd waa dheerayd laakiin kuwii ugu xanuunka badnaay ayaan waxay ka mid tahay wixii waqooyi ka dhacay. waana waxa ilaa ayaa maanta dhowr iyo 30 sano kadib weli aan la tacaalayno oo aan u laanahay xal waara. kalsoonidii berigaa dhuntay dhaawacii gaaray kalsoonida ummadda Soomaaliyeed dhaxtiilay inaan ka soo kabanahay dhowr iyo 30 sano sii maray. حاربنا horta cibaarada ama khibradda ugu fiican ee meesha aan ka qaadanayna waxay tahay
qalbiga dadka Soomaalida in la ilaaliyo inaanan dhaawac loo geysanin qalbiga لأن dhaawaca qalbiga loo geystay ka soo bogsashadiisu waa dheer tahay waana dhib badan tahay sidaas daraadeed slogan-keennii ahay Soomaali heshiis ah waxa uu asalkiisa iyo nuxurkiisu yahay waa isdaqaray karnaa waa isdiriri karnaa waa uraan isku dhufa karnaa waa xataa waa isdili karnaa laakiin waa laga biskoodaa qarka waa laga biskoodaa dilka waa laga biskoodaa oo ama waa la xeertaa ama waa la xuguntaa laakiin dhaawaca qalbiga gaara looma jeedo lama arko daqarka inta ku dhacay ka wajiga ku dhacay gacanta jabtay iyo qofka maxaan ku raadayay xataa curyaamo iyo dhaawaci gaar waa muuqdaa waa la arkayaa dhaawaca qalbiga qofka gaaraahay lama arko sidaas daraadeed waa sababta ay u dhib badan tahay in la daaweeyo walaxadan arkayn boogadan arkayn ma dhayi kartid ma daaweyn kartid sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed wax badan baa kala gaaray midnimada waqooyi iyo koonfur bas noogama hadlaysna culayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo midda waqooyiga iyo koonfurta dhaxtaanlahay maanta ha u weynaato laakiin inteena koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahanahay weli boogadhayid badana noo dhiman oo inaan isboogadhayna u baahan laba dib u heshiisiineed ayaa noo taalo dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca inuu heshiiyo sidaas daraadeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer maxaan ku raadayay gobol leh heer degmo leh meesha ugu horeysayso hadda naqaano heer degmo qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta لأن خلافكم وحوك دعدعا مركز ومضوا أي استحمرت أو أي وحسناف سدان خلافها كدعية باريه تعبك يا خلاف كدعية حولي يا خلاف كدعية وضد المريا خلاف كدعية عيلك يا خلاف كدعية وحا مجتمع ما لا يسوي مادام أو وحا كدحية يالان أردن ما دام وحا مجتمعين كدحية إن بدنوا كميدا أيريين بيها ير معانكو بيرها تعبما أو بيها يستانوي maxaan ku yiraahdaa dhulka daaqsinka laha nagu yar maxaan ku yiraahdaa wax badan aan ugu waxaas nagu yaray ka xafiiltankooda kala jiidso khilaafaadkaas bulshada u dhaxeeya marka dib u heshiisiinta bulshada marka meeshaas ugu hooseyso oo meesha bulshadu ay ku macaamilaysa ah waa in uu ka jiraa qaab dhismeedka xukunka ee ka dhisan qayb ka mid ah oo qaabil sida qaybtan caafimaadka waa qaybtaana waa tacliinta qaybtaana waa biyaha qaybtaan waa cadaaladda qaybtaan waa canshuuraha qaybtaan waa amniga aan u leenahay qayb la mida oo structureka dowladnimada ku jirta oo dib u heshiisiinta bulshada u xil saaran waa inay jirtaa qawaaniin iyo lawaaix waxaa kale hagana waa inaan samaysana waxna waa nooga bilaaban yihiin sidaas daraadeed dib u heshiisiinta bulshada marka waa wax socdo waa socoto meel kuma eka حدث أما إيفنت ما أنت كود جولاي وده بالدقني وأنا لما يسنع عاوة وكلهويننا أن لنا ما هاي وأرين جوكتا أو سعون يسوع أو مروى البؤبان إن يسيسعطو تاسو حالي هذا دبوشيسي دبوشنا دقمة كان قبل كهلا هذا وهير قبل دبوشيسين هو دعوه كان دولة قبلت كهلا هذا دبوشيسين هو دعوه mar walba mujtamac isla degan ee wax ka dhaxeeyaan waxa hoose ka dhaxeeyaan in ay dib u heshiisiinta bulshada dhaxtaalo waxa soo haray bulshada marka khilaafka xudur ka dhacay iyo ka balcad ka dhacay iyo kan maxaan garowa ka dhacay iyo kan maxaan ku raadaay dhobley ka dhacay iyo kan buulaburta ka dhacay mid walba duruufo gaar uu leeyahay dadkaas uu ka dhaxdhacayo deegaankaas degan ayuuna gaar u yahay dowladdu waxay awood u siinaysaa mas'uuliyadda kala duwan dadkaasi inay xalistaan mashaakilaadkooda ayagu ay xalistaan sidaas daraadeed howl socota ah
oo mar walba socota oo joogta oo dad la yaqaano maxaan ku raadayay akhyaar leh oo maxaan ku raadayay gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo culimo iyo wax walba leh oo dib u heshiisiinta ka shaqeeya meel kasta mujtamaciina joogaan leedahay dib u heshiisiinta bulshada sidaas joogto ku tahay kuwii horena waa la dhayayaa waxa cusub ay imaanayaan dad ka shaqeeya loo yeerayaa waa joogto waana la soconay waa dib u heshiisiinta bulshada waxaa noo soo haray dib u heshiisiinta siyaasadda dib u heshiisiinta bulshada dhib badan kuma qabno xeeranaan u leenahay dhaqanaan u leenahay si aan u wajahnaan naqaanaa habnololeedkeenno qarniyaal soo jira yaa leh deegaan kasta xeerkiisa iyo nidaamkiisa uu leeyahay waana la aqbalsan yahay dood badan oo aad u waaweyn kama taagan bas dowladnimay u baahan tahay oo saacida oo kii la kari waaya ee nabadda diida ee dhaqanka san diida ee talada diida dowlad dadka ka qabato u baahan yahay dowladdiina waa dowladdaas dowlad deegaanka ah ee ama muxuu ahaa heer dowlad goboleed ah ama heer degmo ah waaye oo ka qabanaysa dadka dhan marka dib u heshiisiinta bulshadu kama wada dhexaysa bulshadiisa bulshadu waa degaamaysan tahay deegaan kastana shu'uuntiisa gaarka asaa yaqaan kii beeraley ah kii xoolo dhaqato ah kii kalluumaysato ah kii maxaan ku yidhaha magaalo jooga isagaa garanay taas meesha marka uga baxa maxaa soo haray dib u heshiisiin siyaasadda waa lagu kala tegay kooxaa lana kala noqday qabaa'il iyo jufooyin iyo waxaa la kala noqday iyo cashaa'ir waa la dowladnimadii waa isku keensanay annaguna waa isu nimaday dowlad aan wada leenahay oon wada daadihiinaynaan aan leenahay aan ku heshiinay heshiiskaa naga buray heshiiskii dowladnimada aan heshiisku aynaa naga buray dowladdii aan waxaan u aragnaa bahal dadka cunayo oo dadka diiranayo waanay dhacday oo waa waxa 30 sano aan ka kaban laanahay reer hebel ma yeeline dowlad iyo maamul xumaaday iyo siyaasad dowladeed oo qalloocatay oo xumaatay ayaa yeeshay dowladdii kalsoonidii inaan inta soo celin aan waxaan kala lahayn waa kala leenahay qolo walba deegaankeeday joogtaa siday ayadu isu maamushay iyo siday u dadaashay maamulkeedu ugu yaallaa ha u qurxoonaado ama wax ka dhinaadaana laakiin maxaa naga dhexeeyey dowlad soomaaliyeed oo jamhuuriyadda la yidhaahdaa naga dhexayso oo caawa oo kale 62 sano ka hor aan qaadano qabsano gacanta ku dhignay yaa naga dhexayso xeerka degmada balcad ka jira iyo xeerka degmada maxaan ku yidhahdaa gabiley ka jira iyo midka maxaan ku yidhahdaa boosaaso ka jira iyo midka maxaan ku yidhahdaa jilib ka jira waa kala duwan yihiin xeer Soomaali waa kulli laakiin xeer waa xeer beerley xeer waa xeer xoolo dhaqato duruufaha uu xeerku ka jawaabayo ayaa kala duwan xeerka beeraleyda jilib degan ay isku dhaqdahay xoolo dhaqatada ceel dheer degan iskuma dhaqi karto ama ceel buur degan sidaasaa deegaan kasta marka ay shu'uuntooda u gaartahay laakiin xeerka dowladnimadu waa maxay raas Kamponi ilaa raas Casayr ilaa Laawi Cadda wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed joogo isku si oo u qabanaya waa degme hebel malakan taasi waa degme hebel male qaanuunka nambarkiisu intaas yahay xeerka saas ayaa qofkaani qabtay yaa la leeyahay waay maxaa saas loo leeyahay oo kii hore degaan u ahay dad gaar ah degse dad gaar aska kanne magaca Soomaaliya lagu deji Soomaaliya oo dhan uu ka dhaxeeya dowladda iskale dowladdu sidaasay ku tahay wax naga dhaxeeya haddii marka xeerarkii aan ku qanci weynay oo qaarkeen inay dulmiyiin ay u arkeen oo qaarkood lagu dilay oo qaar lagu dulmiyay xeerku waa maxay aniga oo muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliya ah waxaan ogolaaday xeerkaas marka la macnaheedu waa maxay waxaan ogolahay xeerkaasi inuu xurriyadda iga qaadaan ogolahay inuu hanti iga qaadaan ogolahay inuu maxaan ku rahaa haday gaarto nafteyda qaadaan ogolahay waay markaad ogolaado qaanuunka maxaan u yeelayaa danteyda inaan ammaanna maaha inuu intaas iga qaaday bisma markuu intaas iga qaaday muxuu igu bedelayaa ammaanaan ku helayaa horumaraan ku helayaa adeegaan ku helayaa cizi iyo karaamo iyo sharafaan ku helayaa markaan arko
waxaas wanaagsan oo dhan inaanan ku helayn ee la igu dilayo la igu dulminayo laakiin xeer iima noqonayo waa iska diidayaan dadku markay iska diidaan qof ku qasbi kartana waa la ogaaday 26 waxaan leeyahay 29 December 1990 magaalada Muqdisho joognay waa maalintii fidnadu ay ka bilaabatay meesha ilaa 26 January sanadka ku xigay maxaa dhacay dawladda joogtay ciidan kuma yareen hub kuma yareen gantaalo hawada laga tuuro kuwa badda laga rido maraakiib saaran diyaarado maxaan ku iraadayay dagaalamo oo hawada mara wax walba ay dawladdaasi lahayd ciidan 100 kun kor u dhaafana waa lahayd 200 kun ku dhawaad waa celi waayeen dawladnimadii waa hay waayeen maxay u hay waayeen dadka Soomaaliyeed diiday dadka Soomaaliyeed markay wax diidaan awood ka xoog badan oo ku qasbi kartaa ma jirto maxaana laga rabaa dadka inaan xukunno waxa ay raali ka yihiin oo ayagu ay ku heshiiyeen ay doorteen oo yiraan kanaan u hogaansanahay aan lagu xukumo ay yiraahdeen yaa lagu xukumi karaa kaasa dadka lagu xukumaya kaasa dadka lagu heshiisiinaya dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xagee ka guntantaa dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka guntantaa oo ugu weyn waa dastuurka waa heshiis bulsho social contract waa afka qalaad ugu yiraahdo heshiiskaas bulsho waa dastuurkeena markaan dastuurka heshiis ku noqono macnaheedu waxa waa siyaasadda waa ka heshiinay wixii kale ka rakibmaya dastuurkan dhameystirayna ilaa hadda dastuurka waa ka heshiilaanaay waa dhameystiraanaay waa noo qabyo marna manaan qabinba noomaba oolin markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa marka arinta maanta noo taagan waa taas meeshaas ay wax nooga dhimayeen dadaalkeedaan galeynaa wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa ilaahay idinkiis awoodii aan ku leexin lahayna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhameystiro dawladnimada inaan hoos u daadejino heer deegaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midoowno dawladdaani slogankeeda waa kaas Soomaaliya heshiis meesha ka bilaabataa meesha ku dhamaataa dawladda heshiis la'aan markaas ka bacdan dawladda u jeesanayna marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira marka anagu heshiis noqonaan dawladda heshiis la noqon karnaa markale dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 62 ilaahay idinkii sanad guurada 63 ee soo socota xaaladda dalku uu yahay asoo ka fiican roobab noo da'een beeruhu noo baxeen ilaahay idinkiis dawladnimadu noo sii hagaagtay oo ahayos noogu degtay ilaahay idinkiis amnigu meeshu maanta taagan yahay meel ka fiican oo marayo ayaan tageynaa wax badan oo sii sheega ayaan qabay laakiin xaqaana liiga dhageeya saacadda dhamaata la leeyahay mar kale waxaan leeyahay hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabeynaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa ama daawanaysa meel kasta caalamka ka joogto dal iyo dibadda walaalaha Soomaaliyeed ee abaaru ay hayaan aan u dhaga nuglaano aan u jab dheeraano aanan u gacan weynaano aad iyo aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.